الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، الشاطبي، ابن القيم، فاكهاني، ابن الحاج في المدخل، ابن النحاس، شوكاني، صديق حسن خان، الإمام سن الدين علي الأبادي صاحب عون المعبود، رشيد رضا، إيو وهابي رمبا. هنا القوس لي سوى قرنهاي. المهم وركواس ككوبية. waxaa ilaahay mahadiya in wahaabiya lagu bartay waxyaabaha bidca inay la dagaalamaan. xukm mawdu waxay la tahay afarteeda waxaynu ka soo sheegnay baa ku filan. wax badan oo buuq iyo naadnaash oo baahno iskiiba u dhintay midka asaga. idan mawlidku inuu bidca yahay waa kalimatu ittifaaqin bayna muslimiin. waa inaga soo maray taariikhdiis markaynu ka soo warramayni mawlidku inuu bidca yahay nimanka baneeyeyna ma aysan diidin, nimanka diidayna waaba sugeenba haddii. idan inuu bidca yahay waa laisku waafaqay biitifaaqi lmuslimiin. muranku wuxuu ka taagan yahay ma bidca xasana ah mise waa bidca madmuumo dalaala wey. xukunku waa iska kooban yahay. inaysan bidca xasana jirina waa soo taqriin waxba kaga noqon mayno. hawshu inay sidaa tahay jamaaca min ahli cilmi baa caddeeyey. alimaam sheekh islam ibn taymiya، الشاطبي، ابن القيم، فاكهاني، ابن الحاج في المدخل، ابن النحاس، شوكاني، صديق حسن خان، الإمام سن الدين علي الأبادي صاحب عون المعبود، رشيد رضا، إيو وهابي رمبا. هنا القوس لي سوى قرنهاي. المهم وركواس ككوبية. waxaa ilaahay mahadiya in wahaabiya lagu bartay waxyaabaha bidca inay la dagaalamaan. wixii sunnahana ay soo daayaan waa shay wanaagsan wey. idan moogta ilaahay subxaanahu wa tacaala adoonka kaa soo horjeeda ku haya eed isku dhacaysaan hadduu un meel bannaan fadhiisiiyo waa nicmo ilaahay wey. alimaam cuhmaan addaarami markuu bishri lmariisi radinayo wuxuu rabbi ugu kaalmeeyey waxaa ka mida buuri ninka bishri lmariisi ee jahmigeen radinhayo waa jaahil buuri ummadda aan magac ku lahayn oo kaba meel cidla intuu ii fadhiisto bambaaqadka la daalaabu waa ilaahay waa nasrigii wey. inta aanu hadlayna ama culamo soo hadlaysa ama wahaabiya taagnay inay un sunno difaacaan bidcana la dagaalamaan waa magac u yaalla ilaahay agtiisa insha allahu tacala ummadduna ay ogtahay. hal sunno oo nabi maxamed uu ka tagoon la dagaalan haddii lasoo helo xaali xumaan baan bixinayna waana ka toobad keenayna. laakiin waxaa nasiib darro ah maalinka lagu arkay ilaa yowmina haada inaan bidcoon difaacan. ilaa wadaad ayaa kamid u annagu meesha waxaan u joognaa inaan sheekh cabdiqaadir difaacno iyo munaaqibka iyo mawliidka. ayib hawl iska kooban wey. شتان بين العسكرين فمن يكن متحيرا فلينظر الفئتان. يعني way kala baxaysaa baasho halkaas ay mariiso sunniyiintu warkooda waa la yaqaana ahlul bid'a warkooda waa la yaqaana waxay faraha ku wataan hawl iska kooban wey. idan mawlidku marka xukunkiisu waa xaaraan waa bidca ka dambi badan akbar kabaa'irta ka weyta waxaan shirki iyo kufri aynoo ka dambi badan mawlid illa sameey ma jiro. لا الزنا وقتل النفس والسحر هدي لها كفر معها على مذهب بعض أهل العلم وحكستون قال لما قارسي سنين موليد كاكدن بوين. إذن ديجيتان كيسو لما ديكرو وحرام وبدع وضلال وكبائر تورن بكون يوحن كفر كأهي وركس واسكومية هذا ترى وبدع لكنه وبدع حسنة بطل النقاش ونصوم الربا وركا أزاق وكومية كل ما لم يسنه رسول الله ولا استحبه رسول الله ولا أحد من هؤلاء الذين يقتدي بهم المسلمون في دينهم فإنه يكون من البدع المنكرات ولا يقول أحد في مثل هذا أنه بدعة حسنة. مجموع الفتاوى مجلد 27 بقول كنتن يلب. إذن ويسككه بنتاي وحي كل قد وافقين المسلمين إن المولد كان قاعد كان هذا وضعه الله سميه لو دبال دغو نبي وصن سمين متفق إنaysan saxaabo sameeyeen muttafaq inaan aimad atba'u tabi'in aysan sameeyeen muttafaq atba'u tabi'in qarniga afraad inuusan ka horeynin waa kalima ijmaac wey. mawlid iyo dabaaldeg inuusan dhicin xilli qarniga koobaad kii labaad kii saddexaad waa kalima ijmaaciye wey. marka batal niqaash ninka ku yiraahdo anigu wuxuu nabi maxamed uusan ogeyn oon saxaabo ogeyn oon tabi'in ogeyn oo atba'u tabi'in aysan ogeyn oo aimada afarta aysan ogeyn anu kuma jiro maxaa ku dhihi haddaad tiraado waa khaldanta adaa ku gaaloobahay ma wixii aan saxaabe iyo nabiga taabiciin diin ahayn baa ninka diin oga dhigta batal niqaash hawsha waa iska koobanta.
warku waa kooban yahay wixii saxaaba aan ku deeqay ha ku deeqo wixii taabiciin ku filaha kugu filaado wixii rasuulku ku kaafton waxaa kugu filan mawlid inuusan sal lahayn imaam shaafici hal qowlo ku saabsan heli maysid lanna ma soo gaadhin a'imma al-arba'at khilaaftay waabiye naftu lagu geeray warwaaya arba'ay ka keena waayahay imaam shaafici mawlid ka hadlaya keena على الرأس والعين أبو حنيفة بالذات أحناف ذنبهم منحرفين كما الله يلو إيه شافعي ذنب الخرافيين حرقنا كما الله وحنكه الله يا إمام الشافعي محمد بن إدريس نعمان بن ثابت مالك بن أنس أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني أفر تأوي البركة هل قول لا تحريما ولا استحبابا حتى هل أقول لك يا ميس محاجة ما بسوا قرنب وخير السالفات وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع وركوا كوبية وحاكوكو في المولد كإن لقد تغي صحابة مركز إن تاريخ مسلمين تنود جن حقيقة بالله بي تاريخ وحلقوا حفصة صدق سنة كيوي سنة كلا بالتمنات كي سديدات كي طبنات كي شنات حقيقة بالله بي من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم مولد محيوكا تغي يعني روح مسلم كإنت أساكو في لك طيب يوم البعثة كما يسمى باللابين يوم الهجرة كباللابين إلهنا سبحانه وتعالى ما أنها واوين بمقعابا ما نك النبي رسولك الله قد ما نك الله الدري لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم في رسالة إلهي أمده كوك الله يستم المؤمنين تعالى إنه الرسول أسوى الدري إنه أبوه الله مدين إنه ما نك هذا شهير ميسد وحال مالك الله دري رسولك الله قد قام النبي الله مقعد بهاي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وحال لنا هذا أي مولد كويها بدعة حسنة هذه الحسنة ما ضافت صحابة حسنة هي بركة هي خير كان صحابة حقيقة مرتي أو تابعين حقيقة مرين ما قفين خير كان خير كي صحابة قفت الله هذا شيء الله أكو بركة تصام هذه ووركوبة خير كي صحابة قفتية تابعين أمر أذكوها بستي الله أكو بركة يعني مصيبة مصيبة